سدي سمعوا بعضي مروحتك سنايا تدوين هنا فراروغي اسمي سدي سمعوا بعضي مروحتك سنايا بدوان جلدا نمدين والفرايو بيلو في شارمي نبير كايا maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanayaa waxaan la haysto inaan gelin bari aan ka ahay waxaan ka codsanayaa xorriyadeeda inay ii soo celiso gudoomiye aan markii hore al-shabaab ma ahi waligay ma gelin meelay joogaan ma tagin maxkamadda sharafta leh garsooraasha waxaan ka codsanayaa cadaalad inaan helo waxaan ku sheegaynaa kiiskan lagu eedanaya bari aan ka ahay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay cadaaladeeda helo oo xorriyadeeda ii soo celiso maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa anuu kiiska ma gelin weligeena al-shabaab ma noqon mana aqaano maxkamadda waxaan ka codsanayaa cadaalad maxkamadda waxaan ka codsanayaa xorriyadda inaan ka helo cadaaladeeda aan ka helo ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh in cadaalad aan leeyahay la marsiiyo waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ahayn al-shabaab aan weligeena gelin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa waxaan xaq u leeyahay oo cadaaladda ah in la marsiiyo maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaan helo cadaaladdeeda oo xorriyaddeeda aan helo maxkamadda waxaan ka codsanaynaa haddaan maadaama aanan dembi lahayn wax bini'aadana oo laygu soo odeynaya aan dilay iyo waxa aan waday midna aysan jirin maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in xorriyadda la shid al-shabaabna ma ahi weligeena ma noqon maxkamadda waxaan ka codsanayaa inaan cadaalad helo waxa weeye kiiskaana bari baan ka ahay mana gelin asiga cadaalad weeye haddaan helaya weeye gudoomiye al-shabaabna ma ahi anigana haddaan kula taagna al-shabaab ma ahi waxaan kaa baryayaa gudoomiye cadaalad siisay soo ilaahay cadaalad kuu siiyo dembigaana anigu ma gelin bari baana ka ahay bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo taariikhdu ay tahay 8 bishii Abriil 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland waxay soo saartay oo ay ku dhawaaqaysaa xukunka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyadoo fadhigeedu u dhan yahay gudoomiyana ka yahay gaashaanle sare Cabdi Xaaji Aadan garsoore gaashaanle sare Cabdi Jaamac gaashaanle sare Ali عبد علي جامع قرصوري كنديد عبد العزيز أحمد قرصوري كإسلام مركانا كالية محكمة السرع عندما غلب كسيدا كيس كي يكون واقع محكمة السرع عندما غلب كسوحة رعفان ليالكا رعفان عبد الله محمد علمي إنا السعدية محمد نبي لبات الجرأة كل شيء قال كعيو رفعان له عبد الغني سليمان جامع فارح سيلون هنا أبشروا يوسف حرسي صدراتين تدحجرها كل شيء قروي رفعان له حسن جامع محمد علي حسن نور هنا رقية محمد حاشي شاني لباتن جرة كل شيء مقدشو رعفان له محمد علي أحمد موسى هنا ورث نور حسين أفري لباتن جرة كل شيء قال كعيو وحا قرينوه قرين عبد الرزاق محمد صالح وحنا رعفان سركا حفيزك حريريه جود عندما قلب كشي دنبيده علوس كاشان لا سري محمود محمد فارح عبايه وحنا جوب جوكا هلدا مرحون اكس مرحون وري جمال فارح عادل شرعيه حرك اللوقف وشريعه الاسلام كا حير لمبرتن قضب كيس لباد فرقدس كواد الى دغانك ارجعسده maxkamaddu markay aragtay xaashida rafcan qaadashada rif number uu yahay UQT isbaaro 73 kuna taariikhaysan 28 bishii 3 2023 qareen Cabdi Rasaaq Maxamed Faarax
maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraalinta iyo jawaab celinta maxkamaddu markay mudaysay maxkamadda sare markay mudaysay ogeysiisayna warqadda mudaynta ee la qoray kowdii bishii afraad 2023 07 2023 qareen xafid dhinacyada darafyada qareenka iyo xafiiska xeeraryaha guud inay soo xaadiraaniin dhageysiga dacwadda maxkamaddu markay dhageysatay dooda qareenka iyo xeeraalinta maxkamaddu markay akhrisay dhammaan qoraalada ku jira gal dacwadeedka maxkamaddu markay akhrisay qiraalka rafcaanlayaasha ay ka qireen garsooraha hortiis garsoore maxkamadda hortiis sida waafaqsan qodobka 68aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay u cadaatay inay rafcaanlayaashu dhammaantood ay ka mid yihiin ururka al-shabaab maxkamadda waxay ku qanacday dhammaan cadaymihii uu horkeenay xafiiska xeeraryaha guud maxkamaddu markay daalaacatay shareecada islaamka suuratul maa'ida aayadda 33aad a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasuulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum yunfaw fil ardi dhalika lahum khizyu fid dunya wa lahum fil akhirati cadaabun 'adiim maxkamaddu markay aragtay qawaaniinta iyo xeerka loo gafay maxkamaddu iyadoo ku salinaysa shareecada islaamka asbaabta kor ku xusan iyo qawaaniin dalka maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday racfaanka ay soo qaateen racfaansanayaasha kor ku xusan iyo qareenkooda oo ay ka soo qaateen xukunka maxkamadda darajada koowaad ee gobolada Mudug iyo Cayn 0028 kuna taariikhaysan 25 bishii 3aad 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay ayiday xukunkii ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad sumadiisuna ahayd ref number maxkamadda darajada koowaad Mudug iyo Cayn 0028 2023 ee la qoray 25 bishii 3aad 2023 waxaana saxiixay garsoorka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gudoomiye gaashaanle sare Cabdi Xaaji Aadan gaashaanle sare Cali Cabdi Jaamac garsoore gaashaanle dhexe Keenadiid Cabdi Casiis Axmed iyo kaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida bismillaah maanta taariikhdu tahay 8 bishii afraad 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus waxay soo saartay ku dhawaaqaysaa xukunka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyadoo fadhigeedu dhan yahay gudoomiyena ka yahay gaashaanle sare Cabdi Xaaji Aadan gudoomiye gaashaanle sare Cabdi Cali Jaamac garsoore gaashaanle dhexe Keenadiid Cabdi Casiis Axmed garsoore isla markaasna kaaliye ka yahay kaaliyada maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kiiskan ay ku dhawaaqayso maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus waxa racfaanlayaal ka racfaanle Farxaan Faysal Salaad Xirsi ina Ubax Axmed weheliye 19 jir ah ku dhashay Gaalkacyo racfaanle Cabdullaahi Faysal Xuseen ina Xaali Maxamed Xaashi 19 jir ah ku dhashay Gaalkacyo rafcaanle Barkhad Cawil Xirsi Nuur ina Sacdiyo Salaad 19 jir ah ku dhashay Gaalkacyo racfaanle Liibaan Aadan Muuse Cadde ina Nimco Xasan Mahdi 20 jir ah ku dhashay Gaalkacyo racfaanle Cabdiqani Farxaan Cabdullaahi ina Khadro Maxamed 18 jir ah ku dhashay Gaalkacyo rafcaanle Cabdiraxmaan Cawil Axmed ina Samsam Salabaan 18 jir ah ku dhashay Gaalkacyo waxaana qareen u ah qareen Cabdirasaaq Maxamed Faarax waxaana racfaansane ka ah xafiiska xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus gaashaanle sare Maxamuud Faarax Maxamed Abaaye iyadoo uu goobjooga ka yihiin ehelada marxuumiinta iyo dhibanayaasha marxuun X gaashaanle sare Cabdirashiid Xasan Xaashi Gebi marxuun X gaashaanle Gandi Cabdiraxmaan Nuur marxuun X xildhibaan Cabdixakiin Macallin Daahir marxuun X xildhibaan Mukhtaar Cumar Axmed Tiinle marxuun X
إبراهيم شيخ حسن عرو مرحون إكس دبل محمد يوسف حير مرحون إكس كاشان الدحى حاشي آذن علمي حاشي فري مرحون إكس حدقلة عثمان حسن إسماعيل عثمان فري مرحون إكس سعيد جامع محمد سعيد مارادونا مرحون إكس عبدي جامع حسن عبدي قبي لبني قدومية محمد عثمان آذن شرعي يحيرك اللوقفي شريعة إسلامك إيوه حير لمبرتن غضب كيس اللباد فرقد دي سكوات أسباب تحكمك محكمة مركي أركت حاشدة رفعان قادشدة ريف لمبر ويهي UQT إسبارو تدواتن يسدح إسبارو لبكون يسدح لباتن كنا تاريخ سداد لباتن كي بيش يسدحاد لبكون يسدح لباتن قرن عبد الرزاق محمد فارح محكمة مركي أركت هيد حلالنت يجواب علنتا محكمة مركي أي مديسي تعودنا الأوجيسي ورغد مدينتا محكمة السرة عندما قلب كسيدة دولة بوتلان سير 7 لبكون يصدح لباتن لا نقرأي كودي بيش أفراد لبكون يصدح لباتن حفيشة قرنك يحرريها جود إني سو حاضران دقيسك الدعوة محكمة مركي أي دقيسة دوتا قرنك يحررينتا محكمة مركي آخرتي تمام قرر لذا كجرك الدعواتكم محكمة مركي آخرتي محكمة مركي أركتي قرالك قرصورة هورتيس أي كبحيين رفعان لياشو سيدا وافقسن قضب كل حدين يسديدان محكمة مركي وعداتي إني رفعان لياشو يهين كوي إني كمل يهين أورك على الشباب محكمة waxay ku qanacday dhammaan cadeymaha oo horkeenay xafiiska xiraalintu maxkamaddu markay daalacatay shariicada islaamka suuratul maa'ida aayadda 33 maxkamaddu iyadoo ku saleynaysa shariicada islaamka asbaabta kor ku xusan iyo qawaaniinta dalka u yaala maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday racfaankii ay soo qaateen racfaanlayaasha kor ku xusan iyo qareenkooda maxamed faarax cabdirasaaq maxamed faarax ayna ka soo qaateen xukunkii maxkamadda darajada koowaad sumadiisuna ahayd 027 isbaar 2023 kuna taariikhasnayd 25 bishii saddexaad 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad sumadiisuna tahay rif lambar maxkamadda darajada koowaad ee mudug iyo cayn 027 isbaar 23 ee la qoray 25 bishii saddexaad 2023 garsoorka maxkamadda sare waa ay saxiixeen maanta taariikhdu tahay 8 bishii afraad 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus waxay soo saartay oo ay ku dhawaaqday xukunka maxkamadda sare iyadoo oo fadhigeedu dhan yahay gudoomiyana uu ka yahay gaashaanle sare cabdifataax xaaji aadan gudoomiye gaashaanle sare cabdi cali jaamac garsoore gaashaanle dhexe keenadiid cabdi casiis axmed garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda sare kiiska ay ku dhawaaqayso maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus dowladda Puntland waxa racfaanle xasan muuse axmed xasan niini ina aasiyo sheekh axmed 24 jir racfaanle cabdi khaaliq warsamen barre madaxay ina sureer cabdi 26 jir waxaana qareen u ah qareen cabdirasaaq maxamed faarax waxaana racfaan sane ka ah xeerar xafiiska xeerariyaha guud ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus gaashaanle sare maxamed faarax maxamed cabaaye iyo goobjooga ay ka yihiin ehelada marxuumiinta kala ah marxuum maxamed xuseen xarambaal marxuum maxamed cabdi khayr fiinto marxuum ex dable cabdirasaaq siciid qaylo dhibane daahir cismaan faarax dhibane cismaan cabdirasaaq shire dhibane axmed xirsi cali dhibane salaad cismaan yeel dhibane bashiir maxamed cabdi qabaal dhibane maxamed xasan maxamuud joxor dhibane cabdulaahi faarax gaacshe sharciga iyo xeerka loo gafayna waa shariicada islaamka iyo
xeer lambartan qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad asbaabta xukunka maxkamaddu markay aragtay xaashida rafcaan qaadashada ee lambarkeedu yahay rifkeedu yahay 57 ee bishii saddexaad 2023 kuna taariikhaysan 20kii bishii saddexaad 2023 qaran cabdirasaaq maxamed faarax maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraaninta iyo jawaab celinta maxkamaddu markii ay maxkamadda sare markay mudaysay dacwadana la ogeysiiyey dhinacyadana la ogeysiiyey warqadda mudaynta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida 07 2023 lana qoray 1 bishii afraad 2023 xafiiska qareemada iyo xeeraryaha guud inay soo xaadiraan dhageysiga dacwadda maxkamadda markii ay dhageysatay dooda qareenka iyo xeeralinta maxkamaddu markay akhrisay dhammaan qiraalada ku jira gal dacwadeedka markay aragtay qiraalka garsoore hortiis ay ku qoreen ay ku bixiyeen rafcaanlayaasha sida waafaqsan qodobka 68aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda waxa markay u cadaatay in rafcaanlayaashu dhammaantood ay ka mid yihiin ururka al-shabaab maxkamaddu markay ku qanacday dhammaan cadaymihii warkeena xafiiska xeeraryaha maxkamaddu markay daalacatay shariicada islaamka suuratul maa'ida ayada 33aad iyo qawaaniinta iyo xeerka loo gafay maxkamaddu iyadoo ku saleynaysa shariicada islaamka asbaabta kor ku xusan iyo qawaaniinta dalka u yaala maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday racfaanka ay soo qaateen racfaansanayaasha kor ku xusan iyo qareenkooda qareen cabdirasaaq maxamed faarax oo ay ka soo qaateen xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee mudug iyo cayn oo ahaa 00-71-2022 kuna taariikhaysnaa 6 bishii 7 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad oo rif nambarkiisu uu yahay 00-71 isbaaro 2022 ee la qoray 6 bishii 7 2022 waxaana saxiixay garsoorka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida bismillaah maanta oo taariikhdu tahay 8 bishii afraad 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus waxay soo saartay oo ay ku dhawaaqaysaa xukun maxkamadda sare iyadoo fadhigeedu u dhan yahay gudoomiyana uu ka yahay kaashaanla sare cabdifataax xaaji aadan gudoomiye kaashaanla sare cabdi cali jaamac garsoore kaashaanla xakeenadiid cabdi casiis axmed garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kiiskan ay ku dhawaaqayso maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxa racfaanle ka ah racfaanle abuukar cabdi cismaan sheekh suufi goobe ina khadiijo barre macallin 52 jir ah rafcaanle salaad cabdullaahi cabdi ina xamiido cumar 28 jir ah waxa qareen u ah qareen cabdirasaaq maxamed faarax rafcaan sane waxa ka ah xafiiska xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida kaashaanla sare maxamed faarax maxamed iyadoo ay goobjoog ka yihiin ehelada marxuum ex nabadoon cabdirasaaq xasan walloore sharciga iyo xeerka loo gafay shariicada islaamka xeer lambar 10 qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad ila dagaalka xisada asbaabta xukunka maxkamaddu markii aragtay xaashida rafcaan qaadashada ee rifkeedu yahay UQT isbaaro 73 kuna taariikhaysan 28 bishii 3 2023 qareen cabdirasaaq maxamed faarax maxkamaddu markii aragtay eedda xeeraaninta iyo jawaab celinta maxkamadda markii ay mudaynta maxkamadda sare oo 07 isbaaro 2023 lana qoray 1 bishii afraad 2023 xafiisyada xeeraalinta iyo qareenkana lagu wargeliyay inay ka soo qayb galaan dhageysiga dooda
dhageysiga dacwadda maxkamaddu markii ay dhageysatay dooda qareenka iyo xeelaalinta maxkamaddu markii akhriday dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka maxkamaddu markii aragtay akhrisayna qiraalka rafcaanlayaashu ay ku bixiyeen garsooraha hortiisa sida waafaqsan qodobka 68aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa markay u cadaatay inay rafcaanlayaashu ay ka mid yihiin ururka al-shabaab maxkamaddu markii ay ku qanacday dhammaan cadeymaha uu hor keenay xafiiska xeelaaliyuhu maxkamaddu markay daalacatay shariicada islaamka suuratul maa'ida ayada 33aad maxkamaddu markii aragtay qawaaniinta dalka u yaala xeer lambartan qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad maxkamaddu iyadoo ku salaynaysa shariicada islaamka iyo asbaabta kor ku xusan iyo qawaaniinta dalka u yaala maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaansanayaasha kor ku xusan iyo qareenka rafcaansanayaasha cabdirisaaq maxamed faarax rafcaankaasoo ay ka soo qaateen xukunka maxkamadda darajada koowaad ee mudug iyo cayn sumadiisuna tahay 038 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolada mudug iyo cayn rif nambarkeeduna ahaa 038 ee la qoray 13 bisha 12aad 2023 waxaa saxiixay garsoorka maxkamadda sare gaashaanle sare cabdifataax xaaji aadan gudoomiye gaashaanle sare cabdi cali jaamac garsoore gaashaanle dhexe keenadiid cabdi xasiis axmed garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida bismillaah maanta oo taariikhdu tahay 8 bishii afraad 2023 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus waxa ay soo saartay oo ay ku dhawaaqaysaa xukun maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo fadhigeedu u dhan yahay gudoomiyena ka yahay gaashaanle sare cabdifataax xaaji aadan gudoomiye gaashaanle sare cabdi cali jaamac garsoore gaashaanle dhexe keenadiid cabdi xasiis axmed garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kiiskan oo ay ku dhawaaqayso maxkamadda sare waxa rafcaanle ka ah rafcaanle cabdixakiin xasan dheere ina maryan axmed 52 jir ah waxaana qareen u ah qareen cabdirisaaq maxamed faarax waxaana rafcaansane ka ah xafiiska xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare maxamed faarax maxamed cabaaye sharciga iyo xeerka loo gafay waa xeer lambartan qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad maxkamaddu markii aragtay xaashida racfaan qaadashada rif lambarkeedu uu yahay SHQT isbaaro 59 2023 kuna taariikhaysa 20 bishii 3aad 2023 cabdirisaaq maxamed faarax maxkamaddu markii aragtay eedda xeeraalinta iyo jawaab celinta maxkamaddu waxay markay mudeysay maxkamadda sare mudeynta maxkamadda sare rif nambarkeedu yahay 07 2023 lana qoray 1 bishii afraad 2023 xafiisyada qareenka iyo xeeraalintana lagu wargeliyay inay ka soo qayb galaan dhageysiga dacwadda maxkamaddu markii ay dhageysatay qareenka eedda qareenka dooda qareenka iyo xafiiska xeeraalinta maxkamaddu markay akhriday dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka maxkamaddu markii ay ku qanci weyday dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka maxkamaddu markii aragtay qawaaniinta iyo xeerka loo gafay xeer lambartan qodobkiisa labaad iyo farqadiisa labaad maxkamaddu iyadoo ku salaynaysa shariicada islaamka iyo asbaabta kor ku xusan iyo qawaaniin dalka u yaala maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay aqbashay racfaanka uu soo qaatay qareen cabdirisaaq maxamed faarax sumadiisuna ay tahay rif number SHQT isbaaro 59 tankii bishii 3aad 2023
muwakilkana uu u yahay rafcaanle cabdixakiin jamaal jaamac xasan wardheere ina maryan axmed 52 jir ah maxkamaddu waxa ay wax ka bedeshay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ka soo baxay mudug iyo cayn sumadiisuna ay ahayd 0-441 ee 2022 kuna taariikhaysan 13 bisha 12 2022 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay cabdixakiin jaamac xasan dheere ina maryan axmed 52 jir ah 20 sano oo xariga maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ku riday ay u xukuntay gaarigii dawladda ay ku ayiday taariikhdiisuna ay tahay KH 296 waxaana saxiixay gaashaanle sare Ciste Xaaji Aadan gudoomiye gaashaanle sare Cali Cabdi Jaamac garsoore gaashaanle dhexe Keenadiid Cabdicasiis Axmed iyo kaaliyaha maxkamadda sare wabillahi tawfiiq maxkamaddu